hadda wadadii la helay horumar lagu gaari lahaa dawladdu hana tooxil qaran inay gudataan hubnaayay aynay gudataan hubnaayay hadda wadadii la helay horumar lagu gaari lahaa dawladdu hana tooxil qaran hadda wadadii la helay horumar lagu gaari lahaa dawladdu hana tooxil qaran inay gudataan hubnaayay isbitaalka harhar wasiirka caafimaadka iyo bahda caafimaadka oo dhan agaasimayaal waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa intii ka soo qayb gashay arrintaas waxaan rajaynaynaa ilaa idinka sida ugu habboon inay meeshata waxaan uga qabtaan abaal yeeshaan waxaanu idiin sheegaynaa oo idin ogeysiinaynaa meesha waxaa ku yaal isbitaal 8 qol 2 musqulood barked xilli kala dameeyana waa la dhisay waqtiga uu dhisnaayaa 8 sano weeye wax agabkaa hoo yaal dhammaan waxaa keentay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha deeqda bixiyo iskaashaday waa ku mahadsan yihiin uga mahadceliyey wixii dambe oo hadda naga dhiman insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu si toosa aan ula xiriirno caafimaadka asaasiga مكاتبنا كلام على حسب متقودهان بدأ دمان أنت أنا كسين وهذا شغله كشرت كودهان دمانتين يودك الدجان كما وعند كسلاوية صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير وزير كاري عادمان واحد يدكم واحد علينا إنه xarunta hooyada iyo dhallaanka xaarxaar xaruntani hadda muddo waxay shaqaynaysay 12 bilood si ku meel gaar ah ay soo shaqaynaysay 12 bilood caafimaadka wasiirka iyo cabdirsaaqadayna aad baan ugu mahadcelinaynaa hawsha ay halkan ka qabteen haddana waxaan rajaynaynaa hawl ballaarinaa ka qaban doontaan idinka iyo hay'adaha la xiriira wasiirka faahfaahin doona wasiir halkan xaruntan dadku qayb ayaa iyagaa dhistay qaybtan hadda aynu taagannahay waa deegaan aad u ballaaran deegaankan xaarxaar meeraysane sagaagis iyo guud ahaan deegaanada u dhow oo dhan waa deegaan ballaaran hawl ballaaran u baahan ahaantii waxaadna ka garan doontaan muxuu ahayd shaqada haddii markay dhaqaaqdo waad dooran doontaan culayskeedu waa badan yahay intaan hadda arkaynay wasiir muxuu ahayd aad baanu idinku mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka runtii farxad bay noo tahay xaruntan cusub oo kusoo kordhay maxaa la yidhahdaa caafimaadka inay soo kordhiso world vision ahaana runtii waxaan diyaar u nahay inaan support gareyno أول بس أو تاجيري جرني محلي سيرفيس كعافمات الدجمدة قول بيوت هاي بان أمي سنة هاي وزارة ده يبلشدة الدجمدة بورتيلا هي ده وول فيجن إن السوق يو MCH كان محلي هذا MCH كان سو تاجيري دون بلشة بدن واحترنا عندنا محلي هذا ضدك بلشدة بورتيلا كان مناسبة دان وحن آزياد أسودويني يا وزير كوزارة عافمات الدكتور عبد الناصر iyo waftiga uu hogaaminayo runtii maanta waxay noo tahay farxad weyn maadaama MCH kulmiye oo aanu 3 sano iyo bar ku dhawaad aanu sugaynay in hay'ad iyo wasaarad la wareegto inaanu helno nasiib wanaag maanta waanu helnay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan u hambalyeeynaa wasaaradda caafimaadka ugu horeeyo wasiirku dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen inuu shaqeeyo MCH kulmiye ruhantii waa mid xusuus mudan mudana wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo wasaaradaaduba waxaanu ka degma ahaana diyaar u nahay in aanu ka faa'iideysano jaaniska aanu helnay ay wasaaradda iyo World Vision bay noo keentay mar labaad iyo mar saddexaadna waan idin mahadcelinaynaa
waxaan kaloo u mahadcelinayaa mas-uuliyiintii horey ugu haysay MCH-ka gacanta gabdhihii ka shaqaynayay iyo gudoomiyihii xaafadda iyo gudoomiye ku-xigeenkii intaba oo waqti dheer runtii u samray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyaguna dadaalka ay sameeyeen odayaasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحة وين بينوتها هاي إن أنو ساكا دهفره MCH كالكال أو مدة كلمية أو مدة نقول فرقانية عدس هراء odayaasha iyo dadka deegaanka ka yimina booqashadeedii hore waa ku jiray ahaa ilo ilaa in farjis uu naga xiray inaanu meeshaas hawl galino nasiib wanaag waanu helay inuu hawl galo maanta laga bilaabo wuxuu ka tirsanaan doonaa rugaha caafimaadka buurtinle waa MCH-kii saddexaad xaafadaan weyn oo dhankaana serfi garayn doona ama hawl ama u adeegi doona waxaan u baahanahay MCH marka la yiraahdo shuruudu leh shuruudaha waxa ugu horeeya horta waa dhismayaasha waxa laga rabaa ugu yaraan meesha MCH noqonta inay 5 qol tahay MCH maxaa loo yiri kelmadda MCH waa mother child hooyo iyo caruur baa laga hadlaya hooyada marka laga hadlayana meesha ay ugu muhiimsan waa meesha ku dhali lahayd haddaysan hadda lahayn qolalkii ku dhali lahayd meesha tan hooyo ku dhali lahayd waxaan doonaynaa annagu keenay shaqaalihii iyo adeegiba community-gu ku mahadsan yihiin hore hadday 3 qol dhisteen 2 qol oo ku dari karaan 2 qol in lagu daro buu baahanaya waa hadii la rabo inuu MCH ahaan u shaqeeyo hadii kale waa kala dhimanaanaysa shaqadiisu isma maqlayno community hadii kale shaqadiisu waa kala dhimanaanaysa waayo qaybtii waxa maqan wax lagu dhalin lahaa waxaan u baahanahay in 2 qol lagu siyaadiyo hadii rabbiidmo guri waa la dhisi karaa xarigna waa la jari karaa waa la oran karaa meesha waa meel caafimaad laakiin waxa muhiimadu tahay meeshu meel adeegta inay tahay meeshu meel wal mar u furan oo markii la yimaado dadka u adeegaysa inay tahay hadii halka emergency ka soo gasho oo la yiraahdo qofkii lama hayo magaalada laga raadinaya hadii xarun ma wax waad garan kartaan guri walba waa noqon karaa MCH hadii farta lagu fiiqo leeyahay waa MCH kuliyaha ka duwanaan maayo hadii uu wuxuu kaga duwan yahay hawsha adeega uu bixinayo waxaan rabnaa hadii rabbiidmo in si fiican hawshan looga hawl galo wasaaraddu hadii rabbiidmo maanta ka bacdi programkeeda ku jirtaa 3 sano soo socota kharashkiisa iyo shaqaalihiisa iyo mushaharkiisa waa diya bariye gali maayo toiletiskii suuliyaashii qaybihii ka dhinaa qaybta faceka waa taas ku kooban yahay faceka labaad oo ah superstructure-kii in dhismihii la taago dan haddii marka roof loogu talagalay ama shub laga dhigayo iyadana faceka labaad soo doono anaga hadda laakiin shaqadan wada waxa weeye waa faceka koowaad oo ah informationada utility beamkan aan sameeyno kolay asbuucii hore ayaan shaqada bilownay bartamaheedii isniintii oo kale marka halka imaanaynay xoogaa delayed baan ugu dhacay waqtiga waxaan rabnay inaan waqti hore sameyno xoogaa dhulka waxaan naga qabsan challenge badan laakiin alxamdulillah kadib awareness badan oo community laga sameeyay iyo qolada deegaanka oo runtii aad nooga shaqeeyay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo tiimka xildhibaanada walaha deegaanka iyo shacabka dadweynaha maadaama waxaan qabanaynay tahay public service way kala duwan yihiin marka dhisme caadiya la qabanayo iyo marka bulshada loo adeegayo intan maanta meesha joogta waxaan isugu nimi waa public service-ka wey inaan shaqa ummadeed baan ka shaqeeya cusbitaal runtii innaga u baahan nafteena u baahan qoysaskeena u baahan magaalada dhan baa u baahan waa wax dan guuda wey marka waan idin soo dhaweynayaa mar kale farxad weyn bay noo tahay inaad noo timaadaan nala aragtaan meesha aan wadno shaqadan runtii aad baan idinka mahadcelinaya waa nimacsantiin foundationkiisa u sameyno muddo badan baan gaar ahaan hosbitaalkan ula soconay inuu bilaabmo inuu hirgalo bulshadana service badan u keenayo taageero badan siinayo haddana waxaan u maleynayaa bilowgiisii baa u nimaanay maxaa la yiraahdaa dad badanna waa ka faa'iideysan doonaan ani shakhsiyan hosbitaalkan muddo badan baan dabagelayay sida waxa weeye maxaa loo bilaabi lahaa loo xaqiijin lahaa maantana waxaan u maleynayaa rajo fiican baan ku jirnaa fayskiisii hore meel fiican buu marayaa fays labaad iyo saddexaad ilaa uu dhammaado taasna waxaan u maleynayaa guul bay wasaaradda u tahay bahda caafimaadka iyo bulshada ka faa'iideysanaysa degmada leenahay waqtiga nooga yimid magaalada madaxda Puntland garowe uu hogaaminayo wasiirku soo dhawaada degmada xarf aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga aad ku soo bixiseen soo kormeerdaan bilowgii isbitaalka degmada xarfo sidaan la soconno wasaaradda caafimaadka isbitaalkaas ku bilowmi lahaa annagu ka degma ahaan waxaan
waxaa naga qabsaday caqabado badan maadaama uu deegaanka waa dhaweyd uu ka dhacay dilaaca cudurka shuban biyoodka ee wasaaraddu warbixinteeda ay hayso waxaanu soo marnay bulshada xarfa iyo dhammaan inteeda maanta joogta waanu ka warqabnaa inaanu ku dabiibaynay iskuullada waxbarashada barxadihiisii inta MCH-kii degmada ku yaalay uu qaadi waayey bukaankii soo dhacay mar walba isbitaalkaani aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay oo ugu horreeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda World Vision madaxdeeda qayb ka mid ah maanta nala joogta bulshada xarfo waxtar weyn buu ahaanaya insha Allah aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waqtigeena qaaliga sidaad ugu soo biirteen maanta kormeedaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ilaahay ku soo dhawaada degmada xarfo baahidu tan kaliya ma ahaan doonto insha Allah bahda caafimaadka oo wasiirku mar walbaba waxaan ka wada xiriirin doonaa si loo dhameystir lahaa isbitaalkan una noqon lahaa isbitaal shaqeeya waan idin mahadcelinaynaa wax kale oo waxaan sheeganaynaa ah badownimadayada waxa weeye isbitaalku markuu yimaado dadka uu ku cusub yahay wax badan baa ka khaldaman waxaan rabaa inaan caddeeyo maantay oo wasaaradda iyo hay'adda iyo magaciisiga la socdo waxaan rabnaa inaan nolol ka harin isbitaalka dhismihiisa waa qodob muhiim ah oo aan hay'adda iyo wasiirka iyo isku duwaha annagu haddana waxaana waagii hore qofka yar waa loo helin jiray war soo kaca la oran jiray agoonka iyo degmo yar oo cusub baan nahay oo aan hay'aduhu u badnayn inay aqoonsadaan dhibaatooyin badan baanu degmada yar ku qabnaa waxaan rabnaa in dadka Soomaaliya oo hay'adaha iyo dawladda iyo magaciisigooda waa horna dawladdii idin ka horeysay waan ku yiri meelaha aan hay'aduhu aqoonsanayn in loo taxadaro in dawladdu ay kaabto isbitaalada waddankeena ka jira haddeer hadda ogtiin haddii ogeynba waa meesha dhibta badan wasaaradda caafimaadka xeela santaro iyo MCH waa la wadi karaa MCH dawladda gacanta ka taagawada waa amiin isbitaal dawladda gacanta ka taagawada waa anigu mesela barreer Canada waxaan magaalada ku noolaa waxaan garanayaa 10 isbitaal hal mar dawladdu wada xirtay hal mar qaarna la isku geeyay qaarna la xiray sababtu waxa weeye shaqaale ciidda ka badan buu baahanayaa wuxuu u baahanayaa inaan saxar go'in alkoolada yartaho inaysan go'in daqiiqad from dhuxul beeshanka jiif wax loogu karinayay sariirta go'a saaran wixii lagu nadiifin lahaa daawadii cuntadii yani adduun dhan oo socda magaaladaas loo maamulay keligii loo maamulay waxay u baahan tahay marka community ahaan haddarba in loo sii toogahayo isbitaalkaasi hawl weyn buu la imaan doonaa oo shaqadiisa haddii la rabo hawsha gudoomiyuhu sheegayo ashubanka inuu daryeelo oo wax ka qabto haddii kale guryaha kale waxba ka duwanaan mayo oo aan dhisin dadaal badan baan ku bixin doonaa insha Allah inuu shaqeeyo oo hawl galo laakiin waa taqanin waddanka duruuftiisa iyo maxaan ku raahdaa tabartiisa intaasoo meelooda ka daran laamay meesha aanu ku taallaayo gudo ku jira calool ku jira oo aan baabuur haysan jid haysan oo wada bukaan socod wada jiifo baa jira insha Allah waa lagu dadaali doonaa laakiin waxaan rajaynayaa in community-guna sidaan aan lagu deena gacan weyn ka geysto gudoomiyuhu sidoo uu ugu dadaali jiray ugu dadaalo community xoog badan oo diaspora bad leedahay oo anaga qaarkood dibadda kula soo kulmay waa ka jiray meesha tan ku jiray ismaan oga marka waxa loo baahan yahay sidii loogu taamayay in looga shaqaysiyo 10 qol baa qorshaha anigu markii hore aan ogaa beey qolada badan raadinaysa imisa qol buu noqonayaa wuxuu noqonayaa 10 qol weey 10 qol okay good so 10 waa dhan hadii hadda faces kale iyo waxa sheegayseen faceskaas waa qorshe dambe laakiin hadda wuxuu yahay waa 10 qol waxaan u leenahay space deer weyn hayasho macnaheedu waxa weeye intaan hadii laga shaqaysiiyo baahi timaado waa lagu dariyaa space hadduu dhul haysto waa lagu dariyaa sida gamba loo keenay waa loo keenaya shida ma yeelanayo isbitaalka qaaxada ee gaalkacyo waxa uu furaa muddo dheer maanta 1993 markii magaaladan heshiisku ka dhacay oo lagu soo laabtay isbitaalkaas waa la bilaabay Dr. Bashir Cali Bixi baa markaasi hay'adii ugu horeysay ee midheer keenay muddo markay shaqaynaysay adii kabaabsi yar baa galay laakiin isbitaalku waxaa dib loo bilaabay 2000 wixii ka dambeeyay ilaa ay hadda kan isbitaalku waa uu furaa maanta isbitaalkaasi wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood qayb lagu daweeyo normal TB-da oo tii hore soo socotay ah
iyo qaybta cusub ee aanu maanta halkaan u nimid ee qolada u adkaysatay dawadii hore ee normal TB first line treatment ee loo yaqaanay qoftaas oo loo yaqaano drug resistant tuberculosis waxaa la oran jiray MDR oo ahayd multiple drug resistant hadda waxaa multiple baa laga saaray meesha waxaa loo bixiyay DRTB versionkii ugu dambeeyay ee hadda WHO gareysay wey isbitaalkaasi labada qaybood ka kooban waxaa maanta halkan ugu timid madaxda dowladda iyo wasiirka iyo cid walba in qaybtii drug resistant-ka ahayd ee u adkeysanaysay dawada hore first line-ka ahayd laga bilaabo halka kan maanta qaybtaa la bilaabayay ma aha 100% qayb hadda dhammaystiran waxaan oran karayaa 50% waa joogtaa 50%na waa maqan yihiin marka laga reebo waxyaalaha yaryar infrastructure-ka oo dhici karaysa in dib loo habeeyo waxyaalaha muhiimka ee shaqadu ku xiran waxaa la mid ah baseline kii oo dhan waa uu maqan yahay waxay noqonaysaa bukaanka inaan ku khasbanaano beri haddaan bukaan qabanno inaanu private-ka u dirno maxaa yeelay lama soo dhamaystirin waxaa kale oo maqan treatmentigii side effect-iga ahayd treatmentigii side effect-iga loo isticmaali lahaa iyadii weli waa ay maqan tahay taasina oo isbitaalka ma taalo waxaa taala dawadii bukaanka la siin lahaa iyadoo aad ay u daran tahay in treatmentigii side effect-iga la helo labadaas waxyaalood waxaa laga soo yeeyay World Vision mana aysan soo dhamaystirin waxyaalaha kale oo in la mention gareeyo waxyaalaha kale oo in la mention gareeyo u baahan waxa weeye mataqaanaa ii sheegeen u baahan waxa weeye in isbitaalkaani marka ay ka tagtay MSF oo Agosto 13 ahayd oo hadda maanta 4 sano ay ka soo wareegtay afartaa sano rehabilitation-kan dambe oo hadda isbitaalka dib loogu dhisay ama loo habeeyey oo World Vision ay bixisay marka laga reebo isbitaalku muusan helin ilaa iyo saacadan wax ranan koostiya oo isbitaalka lagu wado bas la rajaynayaa maadaama MDR-ka hadda bilaabay in ay wuxuu u baahan yahay la helo wixii hadda ka dambeeya kaniyuga oo cusub oo cudurkaas uusan weli ku dhicin inay MDR yihiin dadkii horey cudurka looga daaweeyeen 41% inay MDR yihiin numberka markaa fiirisid waa naxsa laakiin statistics percentage waxa badinaya tirada la qaatay baa badinaysa runtii laakiin haddana saa markii loo fiiriyo waa number aad u sareeyo mashaakilka kale oo taagan waxa weeye qof walba riskigu ku jira ma aha qofka kaliya oo DR ku dhacay inuu isagu kaligiis u soconayo adoo aan waligaa TB kugu dhicin oo waligaa laga daaweyn hadduu qofkaas kugu qofco direct DR baa noqonaysaa ama drug resistant TB baa noqonaysaa primary drug resistant baa la yiraahdaa marka mashaakilkaas oo taagan awgiis iyo xaaladaheenna dhaqaale iyo dhaqan oo aynu naqaano ayaa waxay sii badinayaan markaa dhibaatada taagan mushkilada keenta cudurkan inta la yaqaano waa waxay dhahaan man-made disaster bay dhahaan dadka ayaa gacantooda ku samaystaan see ugu samaystaan kuwa waxaa ka mid ah ugu horeeya bahda caafimaadka oo see ugu horeeyaan inay prescription qalada qoraan daawadii ama qofkii daawadii ha ku yareeyeen ama durationka ha ku yareeyeen ama follow up-ka ha ku yareeyeen inay la socdaan iyo quality-ga daawada qofka la siinayo iyo patientka oo ka qayb qaata inuu daawada jarjaro oo uu sidii la rabo sano u qaadan intuba marka way nagu badan yihiin marka maanta anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaya runtii waxaan rabaa barnaamijkan waagii hore waxaa lagu daaweyn jiray 24 bilood in daawada qofka la siiyo hadda waa la soo yareeyey maadaama daawo cusub la sameeyey 9 bilood ilaa 12 bilood in lagu daaweeyo cudurka hadda baa la maraya nasiib weeye marka inaan heerkaas soo gaaro taasuna markaa waxay naga yaraynaysaa dadkii naga fakan jiray tirada badnaa iyo waqtigii dheeraa oo dadka ay daawada qaadanayeen anoo marka ka faa'iidaysanaya jaaniskan runtii waqtiguna ciriiri yahay waxaan rabaa talooyin yar yar oo ah fadlan dhakhaatiirta oo dhan waxaan ka codsanaynaa inaynan qof daawo TB u qorin ee ay u soo diraan xarunta ugu dhow oo daawada saxda laga siinayo bukaanada iyagu waxay u baahan yihiin talo gaara iyo in lagala hadlo meelo gaara si gaara loola hadlo laakiin bukaan kasta oo daawada bilaaba
waxaa fiican inuusan daawada kala jarin haddii kale uu marka hore iska dhaafo wasaaradda caafimaadka iyo gobolka mudug waxaan si gaara uga codsanayaa maadaama waxa kale aynan ahayn wax shaksi wadi karo ama ay wadi karto xaruntii dawladda ay wadi karaan inaan arrintaa la sahlan lagu daray dhakhaatiirta lagu daray gobolka degmada isuduwayaasha caafimaadka isuduwayaasha isbitaalka inaan meeshaas saaka meesha markii la iskugu yimaado lagu kala dareerin ee meesha il gaara lagu hayo arrintan nin walba ayaa khatar ugu jira naftaada iyo cunugaaga iyo xaaskaaga iyo saaxiibkaa ayaa khatar ugu jira arrinta marka in la sahlado yaan laga soo qaadin waa in loo wada guntado oo lacag lagu bixiyo oo tala lagu bixiyo oo waqti lagu wadiyo runtii waxa weeye arrintaas waxa weeye yay dhuudhuub inoo gelin sababtaa hadda ma jirto hay-ad si rasmiya mar walba u wada soo waxaan waxaa laga yaaba waxyaala yar oo taageera in layna siiyo laakiin meeshii hawshii markii la furo inay dee hawshii saa ku banjarto dhibaato innaga xaggeena dib noogu soo noqonaysa wey runtii waxaan marka rabay oo kale daawada hadda waanu keennay way taallaa waa la deg deg baa loo bilaabayaa beeshinada ugu horreeya iyagoo konton ka badan baa laga inay hargeysa ka yimaadaan oo daawadii la bilaabo deg deg loo bilaabo marka dadkaasi dad bay la nool yihiin laa shaka soomaaliya oo dhan way ku filaqsan yihiin waxaa la rabaa wacyigelin badan inay dhakhaatiirtu sameeyaan oo go'aanada ay ka qaadanayaan qofkaas beeshinka aysan ku degdegin muqdisho saan ogahay waxaa ka dhacday hadda dad MDR qaba oo canuuftoodii culture lagu sameeyey oo intay dhakhaatiiru tagaan intay raajada fiiriyaan sidoo daawo xoogaa soo qaateen dhaan waxba ma qabtiin hore iska tag hadhowna qofkii markaas saa u sii faafiyo haddii BR ay sii dhaafto bahashu ama drug resistant TB sii dhaafto waxaa yimaada wax loo yaqaan XDR ama extensive drug resistant wax daawo ah looma hayo ilaa hadda wax daawo looma hayo marka taas waxay keenaysaa markaa dee qofkaas wuxuu qaadsiiyo oo toos u qaadsiiyo sidii tii hore oo kale inaad si toos u noqotid extensive drug resistant inaad toos u noqotid taasna inagu dhaxal uma hayo adduunka meelo kale qaab kale la sameeyaa oo inagu aynan samayn karin qofka in meel lagu isolate gareeyo oo la xiro oo daawooyin la iskaga wado ilaa uu ka noolaanayo la kerkerayo laakiin innaga dee maanta qofna ma xiri kartid xagee wax ku xiraysaa yaa u geynaysaa waa mushkilo kale iyada laftigeeda arrintaas marka waxa weeye runtii way nagu adag tahay saan ugu dhiiranay inaan furno haddana ilaahay baan u tala saarananaa waxaan rabnaa in dadaal fara badan qof kasta oo ka mida bulshada puntland uu ka qayb qaata arrintaas oo aan laga seexan jaaniskaas anoo kasii faa'iidaysanaya waxaan rabnaa waxaa la gaaray adduunka markii mar walba tadawur lasii samaynayo waxa diagnostiska la dhaho ama go-aanka laga gaarayo in cudurka qofka lagu ogaado TB-da waaga hore candhuufa la qaadi jiray hadda waxaa la sameeya wax loo yaqaano in la beero candhuufta waxaa kaloo la sameeya wax loo yaqaano gene expertise oo mashiinka lagu ogaanayo in qofkan resistant yahay iyo in kale baa yaalla meesha hadda xarunta yaalla ardana wuu yaalla boosaasana wuu yaalla garowana wuu yaalla afartaas way yaalliin qof kasta oo laga shakiyo waa loo dirayaa hadda annagu marka waxaan rabnaa programka saan ku wadno in qof kasta oo suspect yahay ama shaki lagaga qabo inuu TB qabo in gene expertiga lagu habo si wixii category la dhihi jiray in TB-da loo kala qaybin jiray 1 2 3 4 la samayn jiray ay laba category kaliya u noqdaan qof normal TB iyo qof DR bes labadaa group inay noqdaan oo hawshu soo fududaato kii DR asoo waqti badan qaadan oo dadkii uusan u sii gudbin xanuunkii isla markiiba la ogaado daawada hore laga siiyo kii normal TB isla hore laga siiyo shaqaalaha caafimaadka waxaan codsanaya anoo og dhibaatada haysata waan dareemayaa iyo waxyaalaha laga cabanayo oo dhan haddana waxaa la rabaa dee in guntiga dhiisha la iskaga dhigo oo la sabro oo wax badan loo dulqaato runtii haddii kale qofku uusan shaqadii markaa wadi karin uu yidhaahdo war anigu gacan baan taagay meeshaan iga kaxeey laakiin in shaqadii la sigsaago ama ay si xun u socoto arrintaas runtii waan kala talinaya shaqaalaheena insha allah haddii tale waqtiga runtii waa idinku dheereeyey idinkoo raalli ah way fiicnaan lahayd inaan ka hadlo waxa loo yaqaano maxay tahay DR iyo حديث فهميان إسقاط كل سكون بيا مشاكلات كثيرة بدن كتير عندهم هذا الوقت ما هينو وحن كسر جبين يا إنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون كده شغالوا هاي البريفنشن على كشغالين. شغالة كشغالين البريفنشن وحوي إن أنت فايت بالي هذا. وكنتي برتقت حتى فيروس قاعد بتاعي سارس كي يلا استعماله نوع عسى استعماله شغالوا لكن
marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa hataa N95 in la waayo waa wax dhici kara marmarka qaarkood inta badan sida la yaqaan adduunka oo dhan hadda tuurka ugu dambeeyay aan tagnay Rwanda Maxamuud iyo Wasir Ali Ahmed iyo hataa N95 inta badan ma isticmaalaan iyagoo saasay ma isticmaalaan laakiin waxaa jira qaabab tiro badan oo ah ventilationka in la habeeyo aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay muddo dheer kadib in maanta la isugu yimid in la furo DR in gaalkacyo laga furo oo Puntland oo dhanna qaadisan haween horaa Muqdisho looga furay waxaa ka sii horeeyay Hargeysa marka walaal u horeysay marka annaga alxamdulillah halkan badan ka bacdi anigu arintii waa la furay waxaan u baahnay marka furitaanka kaliya qiimo mar loo cadeeyay furitaanka qiimo male waxaa la rabaa takhaatiirta Puntland joogto ama halkan joogto gaalkacyo joogtana waxaa laga maarmaanaya inaysan daawo qolin TB inay refer sameeyaan inay la shaqeeyaan qolada MDR iyo qolada TB labadaba inay la shaqeeyaan annaga waxaa weeyaan TB aad u badan tahay Puntland waa ku badan tahay waxaa weeyaan 624 qof 6,000 baa leeyahay 240 baa TB qaba isla Puntland oo kaliya 6 waxaa kaloo jiro annaga مثلا MDR ka 452 qof baa qaba MDR waxaa weeyaan MDR waa badan yahay aad u badan yahay waxaa jiritaankiisa waa badan yahay contactigiisa waa badan yahay MDR waxaa lagu kala qaadaya laba la sheegay laba shay weeye shay waxa qofkii qabay baa qaada qofka lagu qaasinay qof fiyo hadduu kula kulmo waa qaadaya waxaa qofkii mismanagement sameeyay oo daawada si qalad u sameeyay oo daawada si fiican u qaadanin ama dawadaha halaabay ama maalmuhu gogooyay waxay dhamaan waxa weeyaan daawadu halaabtay mismanagement la labaas qolaab sidiisa laga qaado cudur wala kale laga qaado waxaa u baahan markaa mismanagement in la hagaajiyo loo dhowro la ilaaliyo baa laga maarmaan aad bay u fiican tahay markan bilaabada hadda maxaa jira waxaa way 9 bilood ilaa 12 bilood bay soconaysaa wali sababtu waxaa la ogaaday waxaa weeyaan inay baashatan ku xirnaanta beeshanka uu TB-da ku xiran yahay uu daawada si walba u imaanayo waxaa weeyaan baab fiicnaatay aad u fiicnaatay follow up-kiina waa yaraaday macnaha wax baxayo oo tagaaya ma jiraayo marka saa darteed waxaa laga maarmaana muddadaa gaaban aad bay u fiicnaatay successful bay noqotay inaynu adkayno waa laga maarmaan laakiin maxaynu ku adkaynaynaa waxaa ka mid ah educationka bulshadu in la siiyo educationka waa laga maarmaan takhaatiirta ka shaqeyso halkan waxaa la rabaa bulshadu inay ka qayb qaataan markay u tagayaan ama u imaanayaan ama daaweynayaan inay baraan TB-da waxay tahay iyo TB-da in la daaweynayo labada qaybood lagu kala daaweynayo halkan inay u soo diraan waa laga maarmaan qof kasta oo 3 week u facaya waxaa laga maarmaan in la baaro asaga ha qaba miyuu qabin barbale male ma qabo alxamdulillah wuu qabaa waa la daaweynaya labada daawmisku noqdo waxaa weeye jeena expertiga markii qofka lagu baaro waxaa weeye waxaa la leeyahay MDR buu qabaa oo DR ka ah ama wuxuu qabaa TB du qabaa ama negative way asaga inaan meeshan imaado ka qayb galo teamka World Vision iyo Global Fund maxaa la yiraahdaa farxad weyn bay u tahay centerkan in dib loo furo centerkan waxaan aaminsanahay bulshada wax badan inuu qaban karo doctorka suu yiri Ali iyo Ali Xasanba recommendationkay bixiyeen iyo talooyinkay bixiyeen waxa la rabaa centerkan namuudaj inuu noqdo role model inuu noqdo centerada kale maxaa la yiraahdaa Xamar iyo Hargeysa ka jira shaqaalaha si u shaqeynayaan iyo dhakhaatiirta si u shaqeynayaan inay ka duwanaato ay soo jiitaan xirfadooda iyo waxqabadkooda ay soo jiidato patientkay wax qabanayaan World Vision wax badan ba waxaan u maleynayaa waa la tixi karaa waxaas qabatay laakiin waxa ka muhiimsan waxaan aaminsanahay inaan diyaar u nahay inaan sii qabano sii taageerno maxaa la yiraahdaa centerka inuu sii jiro sustainability-giisa inay sii jirto wasaaradana waxaan aaminsanahay strategic partner inay noo tahay wasaaradda caafimaadka meelo badan baa kala shaqeynaa waxyaalaha caafimaadka waxa weeye si fiican baa u wada shaqeynaa taasna diyaar inaan u nahay 15 center oo TB baa furan kan ku soo biiraya DR-ka ama MDR-ka inaan sii wadnana diyaar baa u nahay 16 inuu ku noqdo service-kana loo provide gareeyo waxa weeye ku emphasize waxaan muhiimadda saaraya centerkan in looga wada yimaado Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan iyadoo la raacayo shaqaalaha xirfadooda iyo aqoontooda ay u shaqeynayaan inay soo jiidato baa muhiim centerkan bulshada gaalkacayeen inay ka shaqeeyaan sidii u wanaagsanaan lahaa u taageeri lahaayeen bulshadana inay ka qayb qaataanna waa muhiim waxaan u maleynayaa gudoomiyaha gobolka iyo maayirka u joogaan
World Vision ahaan wixii commitment ah oo global fund ama World Vision ahaan diyaar inaan u nahay inaan fulino maxaa la yiraahdaa taageerno haday tahay shaqaalaha haday tahay maxaa la yiraahdaa running costiga haday tahay maxaa la yiraahdaa salary-ga haday tahay waxa weeye equipment-ka waxaas oo dhan diyaar inaan u nahay taas baan ka cadeynay aad baa u mahadsantihiin waana farxad bay tahay teamka global fund aan u matalay iyo World Vision in centerkan dib loo furo kadib runtii guud ahaan gobolka anaga maanta waxay noo tahay gobolka mudug hadaan gacanta af ku dhufto fursad qaali ay noo tahay anoo matalaya teamka caafimaadka gobolka fursadaas maanta noo ah in mar labaad dib loo cusboonaysiiyo qaybtii daweynta qaaxada adkaysiga u lah DR taasoo runtii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda World Vision ay iska kaashanayaan sida aad la socotaanna runtii horumar weyn ayaa kusoo kordhaya maalmahan dambe gobolku horumar weyn ayaa gobolka soo kordhaya sidaad ogteen la socotaan mar dhow waxaan furnay qaybihii aad ogeyneen isbitaalka waa MSF oo saakay iyo maanta dhaweyd maanta ay ku xareysan yihiin qaybta quudintu 170 qof oo caruur ay ku xareysan yihiin halka waxaa ka muuqata guul weyn inay caafimaadka gobolka kusoo hoyanayso maantana aan DRkii furayno shalay aan soo furray wasiirka aan wada soconno xarfo hospitaalkii xarfo aan soo furray shalay runtii guul ayay noo tahay gobolku oo runtii aad ogtihiin hawshaan weyn ee wasaaraddu ay liid ka tahay mar labaad ayaan u mahad celinayaa mar labaad tiimka wasiirka hogaaminayo iyo dhammaan guud ahaan gobolka khiyaarta ahi waxaan leenahay waa mahadsan yihiin waxyaabaha yararka oo cabashada aan isleenahay waa wax maanta bilow noo ah shaqo kasta oo ana challenge laga waayimayo waxaan rajaynayaa first phase ku horeeyay weeye maanta waan furanaynaa steps dambe insha Allah horkac ayaan sameeynaa waxaan rajaynayaa insha Allah in loo guuleysto inaan noqono dad shaqaale si fiican shaqadooda hufan u guta oo dadka soo jiita isbitaalkan ama magaaladani waxaa ku taallaa wadnaha Soomaaliya ku taallaa Soomaaliya dhan u dhaxaysa sida ay isbitaalkan caan ku yahay bukaankiisa wuxuu kala yimaadaa Soomaaliya qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid tahay waliba shanta Soomaaliya marka waxaa muhiim ah in dadka loogu adeego si hufan oo martinimo ah iyo si daacadnimo ah iyo si dadaal in loogu adeego waa mar walba loo baahan yahay jajabnaan baa loo baahan yahay waa fursad qaali ah haddii mashiin ama qalab aysan haysan magaalooyinka kale aduga haysatid inaad dadka soo dhaweyso ayaa muhiima waana ku faraxsannahay insha Allah maha asaaskiisii socday isbitaalka xarfo qaybtan maanta aynu halkan xafladeeda ku hayno oo sidaa wada maqlayseen dadka technicalka oo ay ka wada hadleen oo ah qaybtii daawada TB-da adkaysinka u yeelatay TB-da adkaysinka daawada u yeelatay qaybtii ahayd sida la idin sheegay wadanka waa xaruntii saddexaad labada xarumood oo kale waa la idin sheegay waa magaalo madaxda iyo magaalo madaxda labaad ee Soomaaliya gaalkacyo mala waxay noqon doontaa magaalo madaxda saddexaad ee bay noqon doontaa oo malaynayaa wadanka dii xarumaha noocaas ka furmayaan muhiimku wuxuu yahay waxay ku soo siyaada alxamdulillaah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa marka madax haddaad meel la heshid ka bacdi baa majaha meel lala doondoonaya maxaa ka dhimanaya waxaas marka hore aynu hello waxaynu meelaha u aadi jirnay ka bacdi wixii dhimanaya wixii markaas aynu ka wada hadli doonaa iyo meeshaan ka raadsan lahayn intaan u maray inay furanto ilaahay baa ogaa markeeda horeba now xanuunka laga hadlayo wadamada qaarkood waxay u samaystaan xabsi sababtoo ah dadkii daawada adkaysinka u yeeshay TB-da oo badan iyo iyagoo aan awoodin in maxaan ku raahday la daaweeyo xarumaysa u lahayn wadamadaas waxa ugu horeeya South Africa xabsi gaar ah bay u leedahay program public health ku saabsan haddaad daawateen jimcaha kaliya axadda kaliya loo tagaa dadkaas axadda kaliya loo tagaa axaddaasna silig bay kala hadlaan hooyadu ilmaheeda waxay kala hadashaa siliga degadaashiisa halkaas oo kale ka hadlayaan yani khatarta ay leedahay markaynu ka hadlaynahay public security always waxaynu ka hadalnaa qof xabad ku dhacday iyo qof maxaan ku raadlay shaqaaqa meel ka dhacday public security ka weyn ma jiro tanaa madaafiic kugu socda waxaadan daawadeedii hayn oo lala wareegayo oo qofkii uu la kulmaba qaadsiinaya oo kii ku dhacdana aadan daawo u hayn dadaalka iyo dagaalka aynu ku jirro waa dagaal kale oo furan
dagaalkaasaynu maanta rabnaa frontigiisa inaynu furrastaan wala dareeri lahay kow weyna ka tahay marka awal dadkeena noocaasu dhibta iyo dhaqaala darrada haysta waa garanaysaan meelahay u aadi jireen Hargeysa iyo meelaysan dadka aqoon xataa inay aadaan waxyaalaha sii kalifay inay sii wadaanna waxay ahayd oo cudurkaas sii faafiyaan hadda iyagoon awood u lahayn meesha xataa loo diray inay aadi karaan ama daawadi ka doonan karaan waxyaalaha saddexda qodob oo la sheego la faafinta ka qayb qaataan mid waa mid aynu maareyn karno haddii aynu isku tashano oo dhaqaatiirteena iyo dadkeena wax qora waayahan dhaqaatiirka wax ma qoraan cid walba wax qorta dhaqaatiir inaan weliga dhakhtar la qoro dhakhtar sheeganayana waanu haynaa xeerka shalay baa la baasgareeyay oranayay maxaan ku rahdaa xeerka xakamaynta xirfadlayaasha xeer waa la baasgarayn karaa laakiin enforcement-giisa waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato oo enforcement-ga waxaa ka qayb qaadanaya dee dadka xirfadda lahaa inay ilaashadaan haddayna inagu marka ilaalin xirfaddii inagu haddayna ilaalin aynu aqballo dad aan xirfad lahayn inay siday rabaan yeelaan ama qof aan meel soo dhigono shahaado beena wata oo aynu ognahay oo meel u furan tahay insha allah waxaan rabnaa marka qaybtaas waa laga wada qayb qaadan doonaa wasaaradda guddiga la dhisi doono wasaaradda maaliyadda oo adeegsanaysa ciidankeedii iyo waxeedii wasaaradda ganacsigu waxaas dhan laga wada qayb qaadan doonaa marka waxaa la rabaa gacan in la siiyo dadka noocaas way imaan doontaa in la isweydiiyo way imaan doontaa in guddiga lagu khasbad qof walba inuu dib uga qaato maxaan ku rahdaa aqoonsi bay imaan doonta haddayna innagii marka soo wada taagno de waxaynu u sahlaynaa kii aan waxba awal haysan document waxba haysan baynu u sahli doonaa waxaan rabnaa marka waxyaalaha aynu ka hadlayno leenahay waa la isku sii qaatiyaa oo taas qayb weyn ka tahay dadka iska qoraya prescriptionska daawo quality-geeda aan cidna aqoon in maxaan ku rahdaa inuu gacan ka geysano dot systemka wax kale looma soo rogin waxa loo soo rogay qofka in la xakameeyo tii kale haddaynu inagu xakamayno prescription inagu xakamayno daawadii fiicnayd keenno dot systemkuna waxaa xakamaynaya compliance-ga qofkii inuu ku khasbanaado inuu daawadaada u qaato halkaa ka soo qaato daawo quality leh laakiin haddii intuu farmasiga tago xabad iga gad yidhaahdo waad aragtay farmasiyada qaarkood xabad qalaajisa iga gad yani waa wax jira farmasigana waa gadaya marka aynu inagoo dhan ka qayb qaadano hawsha iyada ah warka soo noqnoqdaa waxa weeye wayaan waxaanana weydiiyaa ciddaan wax weydiisanaba how you gonna sustain it sidee baad u sustain garaynaysaan haddaanu hadda idin fangarayno sanadkan iyo labada sano oo soo socota maxaa idin qorshaa ma garan kartaan haddee saa u sustain garaynaysaan macnaheedu waxa weeye budgetka ma haysataa miisaaniyadda ma haysataa ku wadi lahayd adigu berito meeshaan inaysan xirmin maxaa waxaynaya yes ballanqaadiyo waa samaynaynaa laakiin ballanqaadiyaas waxaan rabnaa inay dhaboobaan insha allah oo inagoo ka dhabayno haddii rabbi idmo aad baan ugu faraxsanahay marka inuu qaybtaanu maanta ay furanto hirgasho centerkii waddanka ka furanto isbitaalkaanu wuxuu u yahay catchment wuxuu u yahay dhul badan Ethiopia gobollo dhexe Puntland buu u yahay awal u ahaa daawada caadiga tanna waa ka sii xag jirtaaba oo waddanka oo dhan bayba u tahayba runtii markii xamariya laga reebay Hargeysa waxaanu rabnaa marka in aynu soo fiican isku xirro meesha ka shaqaysino aynu ummadda aragto inay shaqayso ciddii marka aanu la kaashanayna ay marka aragto meesha hawsha ka socota oo ay maxaan ku rahdaa noo godloto sida noogu godloto baan rabnaa laakiin haddii ay meeshaada ku fariisato oo shalay waxaanu furray shaqayn waayaan oranaya annagana wajiga wax waxaanu cid ula tagno garan mayno taa waxa ii dheer marka qaybta intaasaan kaga baxaya taa waxa ii dheer oo ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed kale baan u sheegaya dhismaha isbitaalkii burburay gaalkacyo qaybta socda qabyadiis weli waa qabyo qaybta hore la taagay qabyo wuxuu u baahan yahay gacan qabasho badan sidii intii hore wax gacan ka geystana khayr Allah ka siiyo waxaanu rabnaa sidii hawlka badala weli waa hogadii hawshaas weli waa taagantahay waxaanu rabnaa haddii rabbeedna in gacan naga siiyo oo isbitaalkaas uu u dhismi lahaa 186 sariirood yani wax badan buu kaafin doonaa haddii rabbeedmo waana isbitaal waxbarasho isbitaal teacher noqon doona haddii rabbeedmo waxaan rabnaa in gacan laga geysto haddii rabbeedmo hadda wadadii la helay horumar lagu gaadhi lahaa dawladdu hana tooxil qaran inay gudataan hubnayay inay gudataan hubnayay ora la soconaya